qof naftii halliga ah ayaa isku qarxiyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan goob ku taala koonfurta magaalada oo ah garoon ciyaareed halkaas oo lagu soo dhaweyn lahaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble oo maalmihii ugu dambeeyay booqanayay Galmudug halka weerarku ka dhacay waxa daqiiqado kadib gali lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kula hadli lahaa boqolaal dad oo isugu soo baxay isaga soo dhaweyntiisa sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga iyo kuwa caafimaadka 5 qof ayaa geeriyootay oo 4 ka mid ah yihiin xubno muhiim u ahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka Mudug sidoo kale dhaawacyo ayaa soo gaaray shacabka iyo ciidanka amniga ee goobta ku sugnaa taliyii qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Qoocha Dagaare taliyii ciidamada danab ee Galmudug taliye ku-xigeenka ciidamada sida gaarka u tababaran ee dana qaybta gobolka Mudug iyo duqii hore ee magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Tumay oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in bulshada labada dhinac ku wada noolaadaan nabad iyo saraakiil kale oo ka san ciidamada xoogga dalka ayaa ku geeriyooday weerarkan argagixiso runtii maantay waa maalin qiimo badan weeye muhiimadeedu 8 Maarso waa ka qiimo badan tahay waxay uga qiimo badan tahay dadkii lafdhabarta u ahaa bulshada dadkii aqoonta u ahaa bulshada dadkii barbaarinta u ahaa bulshada dadkii indhaha u ahaa bulshada oo kala xirnaa waa maanta hal meel isugu yimid oo ka wada qaybinaya dhammaan xubnahan waxay ahaayeen tiirar adag oo ay nabadda gobolka Mudug ku taagneyd sidaas oo kale waxay ka hortageen dhammaan weerar isxigay oo ay kooxaha argagixisada ku soo qaadeen gobolka Mudug ka hortagidda isku dhacyada qabaa'ilada diriraha ay siyaasaddu gadaal ka hagayso iyo wax kasta oo bulshada gobolka Mudug lagu midayn karo ay dhammaan xubnahan hormuud iyo horu socod ku ahaayeen muddadii ay ka shaqeynayeen Mudug oo ay dib ugu soo laabatay saaxadda mustaqbalka iftiin ee bulshada Soomaaliyeed sidaas oo kale waxay marar badan si isku duubni uga howlgaleen sidii loo fashin lahaa shabakada isbahaystay oo ka soo horjeeday ammaanka iyo nabadda gobolka Mudug taas oo muujinaysay doorkooda hogaaminta ee amniga inuu ahaa mid ka go'an in Mudug nabad ahaato dadkuna nolol helaan meeshana laga saaro dhammaan isku dhacyada badankooda kuwa la soo waariday daqiiqada kadib inta uusan qaraxan dhicin waxa la filayay inuu goobtan la qarxiyay ka galo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble waxa laga weeciyay goobta oo xilligaas gudaheeda ku sugnaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug oo si isku mid ah ra'iisul wasaaraha u soo dhaweyn lahaa ruuxa isqarxiyay ayaan wadan baabuur balse ha ruux soconaya oo goobta markii uu ku soo dhawaaday isqarxiyay taas oo muujinaysa inuu ahaa weerar la diyaariyay ama qorshaysnaa waxaana goobta saraakiisha dhimatay ay soo gaareen daqiiqadahaasi ma jirto xog ka soo baxday laamaha amniga ilaa hadda sidaas oo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya wali kama aysan hadlin weerarkan waxaana muuqata in ficilada argagixisadu ay wali yihiin kuwa nool laakiin dad badan ayaa rumaysan inaysan hakin doonin horsocodka iyo dagaalka lagula jiro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gobolada dalka qaar ka mid ah booqanaya gaar ahaan Galmudug iyo Puntland waxaana uu tagay arrimo la xiriira doorashooyinka loo dhan yahay inay dhacaan sanadka 2022 isku dubaridka ammaanka iyadoo wali uu jiro kala aragti doonaansho siyaasadeed hogaamiyaasha Soomaalida ayaa isku haysa kursiga madaxtinimada xilli ay kooxaha nabadda iyo horumarka diidan ay gumaadayaan bulshada waxgalkeeda